magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gaar ahaan gegida kubadda cagta Alamsey Stadium magaalada Burco maanta si rasmi ah waxa looga daafuray tartan ciyaareed ballaaran isla markaasina ay isku wajihi doonaan kooxaha heerka koobaad ee Serie A ee ka dhisan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer tartan ciyaareedkan oo ujeedadiisu tahay kor u qaadida iyo soo nooleynta ciyaaraha kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa waxa hirgelisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ibafurka tartan ciyaareedkan oo maanta si rasmi uga qabsantay garoonka Alamsey ayaa waxa hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda madaxda kooxaha kala duwan ee Goodir iyo sidoo kale inta France oo isku wajahay ciyaartani koobaad iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale dhamaantoodna waxay ka hadleen muhiimadda ay leedahay kor u qaadida ciyaaraha gobolka Togdheer maanta waxa loo daafurmay oo loo qabsoomay koobkii ugu qiimaha badnaa ee gobolka Togdheer kaasoo maanta joogiisii iyo nabadgelyada ugu bilaabmay waxa weyn 24 naadi magaca koobkaan u bixinay waa horumarka iyo dhiirigelinta dhalinyarada gobolka Togdheer iyo isku xirkooda gobolka Togdheer maanta waxa uu ku maamusan yahay isku duubnaan iyo wada tashi iyo walaaltinimo ciyaartooyda gobolka Togdheer taasoo aan soo celinay haddana hay'adda dhalinyarada gobolka Togdheer inay dardargeliyaan ciyaarihii hore u yaqaaneen ee gobolka Togdheer iyaga oo isku xirmay iyaga oo magac iyo maamuus kale gobolka Togdheer halkan waxaan uga mahad celinayaa barasaabka gobolka Togdheer iyo taliyaha qaybta gobolka Togdheer waxaan halkan kale mahad celin uga gudbinayaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee qaranka Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee qaranka Soomaaliland iyagoo ah shirkadaha iyo kuwa gobolka Togdheer iyo kuwa weyn bay ku yar baan ugu baaqayo inay gacan qabtaan dhalinyarada oo magac iyo maamuus u sameeyaan wixii aan uga baahno wasaaradda ciyaaraha dhiirigelinta gobolka Togdheer inay ka qayb qaataan runtii fara badan baan soo gelinay xigmad fara badan baan soo gelinay yaani dhaqaale voluntary baa la soo gashay waxa la soo gashay runtii awood aad u ballaaran oo baaxad weyn muddo bila baan imika ku jiray qaban qaabadiisa nasiib wanaag ila xamdiga tartanka maanta uu qabsoomay wasaaradda dhalinyarada sportiga ahaan waxa ujeedada aanu ka leenahay ugu mugan weyn waxa weeye in la soo nooleeyo sumcaddii sportiga ee gobolka Togdheer lahaan jiray qodobka labaad oo ka leenahay waa isdhexgalka dhalinyarada gobolka Togdheer qodobka saddexaadna waxa weeye sidii dhalinyarada aanu uga dagaalamayaan waxyaalaha lidka ku ah dhaqanka insaaniga ama dadnimada iyo ugu horeyso dhaqamada lidka ku ah jiritaanka nolosha sadraagiska tribalismka iyo wixii la halmaa waxaan message halkan runtii jecelahay ugu dambeystii inaan ugu gudbiyo dhammaan bahweyn gobolka Togdheer ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba joogta oo aan leeyahay inaad soo dhiirigelisaan sportskiina gobolka Togdheer koos cidina uma maqna ceel ugu maqna gaar ahaan qurba jooga ayaanu aad iyo aad uga codsanaynaa inay doorkooda ka qaataan horumarinta dhalinyarada sportiga gobolka Togdheer anigoo ku hadlaya magaca tababaraha naadiga Goodir waxaan hambalyeeynaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo soo qaban qaabisay wareegan oo ka kooban 12 kooxood gaar ahaan markan ka sii faaloodo naadiga Goodir waxa kale aan ku rajaynaynaa ciyaarta galabtaan ciyaarayna anaga iyo naadiga Faransiiska inaan guul ka gaarno hadii Ilaahay ka dhigo waxaa maanta aanu ka qayb galay wareeg heer caalami ah oo ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer taadihinayso wareegaas oo kulay sida imka ii muuqata ciyaar aad iyo aad u xiiso leh aan dhex marayso aniga iyo kooxda magaca Goodir ku ciyaaraysa waxaan anigu filayaa inay Burco ku soo noqotay saaxadii lagu yaqaanay waxaan oran karaa maanta horumar ballaaran baa dhalinyarada guud ahaan gaadhay tartamadan iyo kuwa kale fara badan waxaan rajaynayaa in la qabto haddana maamulka gobolka Togdheer runaantii waan dhiirigelinaa waan dardargelinaa cid kastoo ka shaqeynaysa hawlaha sportska wasaaradii dhalinyarada iyo ciyaaraha heer qaran waxaan u maleeyaa inay Hargeysa isugu tagtay marka waxaan oran lahayn inay Burcana insha Allah taala horumar fara badan ka samayso oo roog dhigto oo barnaamijkaas ka qayb qaadato runaantii waxaan oran karnaa maanta waxaan in badan sugaynay oo waa milkii gobolka Togdheer ayaa soo noqday meeqaamkii aan lahayn baan ku soo noqonay runaantii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay tartankan ugu dambeyntii ciyaartan lagu daafuray tartan ciyaareedkan loo qabtay isdhexgalka iyo horumarinta ciyaaraha gobolka Togdheer oo isku wajaheen kooxaha Goodir ee ciidanka booliiska gobolka Togdheer iyo kooxda France ayaa waxay natiijada ciyaartaasi ay ku soo idlaatay 2-0 ay guusha ku raacday kooxda Goodir ee ciidanka booliiska gobolka Togdheer wa Khalid Bakayle wararka muqbaahiyaha caalamiga Star TV gegida kubadda cagta Alamsey Stadium ee magaalada Burco